nin ayaa afkiisii weynaa si aamusnaan ah u kala qaaday isagoo u soo dhowaanaya gabar. Isla markii uu ku dhowaaday ayuu qaniinay, dabadeedna hal mar wada liqay. Isaga oo aan gacmihiisa adeegsan ayuu gebi ahaanba cunay. Aabe iyo gabadhiis oo ku sheekaysanayay jardiinada ayaa si lama filaan ah u arkay dhacdadan yaabka leh. Ninkii ayaa arkay iyaga wuxuuna bilaabay inuu u soo socdo. Cabsi darteed aabbihii iyo gabadhiisii way jeesteen oo carareen. Sam ayaa isku dayay inuu gaariga shido, balse ninkii ayaa dedejiyey socodkiisa isagoo sii dhowaanaya. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu ka daahay hal tallaabo. Markuu arkay labadoodii oo baxsanaya, wuxuu u muuqday inuusan doonayn inuu ka tanaasulo. Markaas ayuu dhinac kale u jeestay si uu uga daba tago. Jackson ayaa ugu dambayn gurigiisii gaaray, balse wuxuu maqlay qof si xooggan albaabka u garaacaya. Ilbidhiqsigii xigay, ninkii ayaa albaabka jebiyey oo gudaha soo galay. Wuxuu si toos ah u eegay Jackson isagoo afkiisa sii kala furaya marba marka ka dambaysa. Argagax darteed, Jackson ayaa ulxaaqin ah afka uga riixday, laakiin ninkii wax cabsi ah muu muujin. Markuu Jackson gartay khatarta jirta, wuu jeestay oo cararay. Ninkii ayaa si dhow uga daba yimi. Jackson wuxuu orday ilaa guriga Sam, laakiin ninkii ayaa goor dhow albaabka soo gaaray. Sam ayaa si degdeg ah ula baxsaday Jackson. Wax yar markii ay socdeen ayay arkeen gabar xiran dhar cas oo taagan waddada dhinaceeda. Waxay ahayd isla gabadhii markii hore la liqay. Waxay isku dayeen inay weydiiyaan waxa ku dhacay, balse gabadhu waxba ma xasuusanayn. Waxa keliya ee ay ogayd waxay ahayd in waalidkeedna uu ninkaas cunay. Haatanna ninkii weli wuu daba socday. Si ay ammaan ugu ahaato, waxay go'aansadeen inay geeyaan Lotus oo ahaa saaxiibka Sam si ay halkaas ugu magan gasho. Intii Jackson musqusha ku maqnayd, waxay heshay Sam oo miyir beelay oo dhulka yaala. Markii ay u dhowaatay ayay aragtay gabadhii oo wax ka dul akhrinaysa Sam. Markay gabadhu aragtay Jackson, si degdeg ah ayay qolkeedii ugu carartay. Jackson waxay u malaysay in Sam dhintay, waxayna ku sigatay inay ooydo, laakiin Sam ayaa si kedis ah hawada u neefsaday oo dib ugu soo noolaatay. Sam ayaa isku dayay inuu istaago, balse wuxuu dareemay in wax khaldan yihiin. Wuxuu si degdeg ah uga bixiyey kabtiisii, wuxuuna arkay in cagtiisu isu beddeshay cag gabar. Labadooduba aad ayay ula yaabeen. Sam wuxuu go'aansaday in tani ay tahay sixir uu ninkii ku sameeyey. Isagoo go'aan adag leh ayuu doonay inuu baxo si uu uga arguto ninka. Hase yeeshee, isla markii uu bannaanka u baxay ayuu ninkii la kulmay. Si lama filaan ah, Sam geesinimadii way ka luntay. Wuxuu si walwal leh u weydiiyey ninkii sababta cagtiisu isu beddeshay. Yaabkoodii, ninkii ayaa jilba joogsaday isagoo ka baryaya inay afkiisa galaan. Jackson ayaa weydiisay inay ammaan ahaan doonto. Ninkii si adag ayuu madaxa u ruxay. Markay daacadnimadiisa dareentay, Jackson ayaa si toos ah afkiisa ugu booday. Sam ayaa yara labalabeeyey, laakiin ugu dambayn isna wuu raacay gabadhiisa darteed. Gudaha caloosha ninka ma jirin xubno jidheed, balse waxaa jiray meel aad u ballaaran. Waxaa soo baxday in afka weynu uu ahaa oo keliya albaab laga galo. Cod ayaa ka dhex yeedhay meeshaas isagoo isbaraya inuu yahay Tombi. Wuxuu sharxay inuu yahay malaa'ig loo soo diray inay qabato shaydaan dhibaato ku haya dunida. Gabadhii ay horay u arkeen waxay ahayd muuqaal uu shaydaanku isu ekaysiiyey, waxayna lahayd nuqulo badan. Dhammaan nuquladaas waa in lagu xidhaa goobtan si gebi ahaanba loo tirtiro. Si kedis ah, wareeg dabayleed u eg ayaa ka soo muuqday korkooda, wuxuuna dibadda uga nuugay. La kulanka malaa'ig u muuqaal gaar ah sida Tombi ayaa Jackson ka dhigtay mid aad ula yaabta. Tombi wuxuu uga digay inay ka taxadaraan gabadha dharka cas xidhan, dabadeedna wuxuu sii watay hawshiisii. Ka hor intaysan ka soo kaban yaabkoodii, jug weyn ayaa dhacday. Markay bannaanka u baxeen, waxay arkeen in Tombi uu ku dhacay gaari uu waday hooyada Jackson, taasoo dishay. Saddexdoodii waxay meydkii Tombi geliyeen boorsada dambe ee gaariga. Si ay khaladkaas uga magdhowaan, waxay go'aansadeen inay dhammaystiraan hawshii Tombi. Waxay heleen mid ka mid ah nuquladii gabadha shaydaanka ah, waxayna ku xireen xarig. Inkastoo Tombi dhintay, afkiisu weli wuu furnaa oo la adeegsan karayay. Isla markii ay damceen inay afkiisa isticmaalaan, daraasiin gabdho ah oo dhar cas xidhan ayaa ku hareereeyey. Jackson ayaa degdeg u baxday, qabatay hal gabar, waxayna ku riixday afka weyn. Laakiin gabar kale ayaa si lama filaan ah gadaasheeda uga soo muuqatay, waxayna Jackson kula tuurtay gudaha afka. Gudaha, gabadhii waxay iska dhigtay mid murugo badan, iyadoo sheegtay in waalidkeedu aysan fahmin ama dan ka lahayn. Hadalladeedu waxay taabteen qalbiga Jackson. Labadoodu way ishabsadeen iyagoo go'aansaday inay saaxiibo ahaan isu ilaaliyaan. Hase yeeshee, Jackson mar hore ayay saamayn ku yeelatay awoodda shaydaanka. Labadoodii waxay isu milmeen hal makhluuq. Gabdhihii bannaankana dhammaantood waxay isu beddeleen nuqulo Jackson ah. Nuquladii waxay ku boodeen gudaha meesha afka ku jirta, iyagoo muujiyey inay dhammaantood ahaayeen dad sixir lagu marin habaabiyey. Jackson ayaa nuugtay tamartooda, iyadoo sii xoogaysanaysay marba marka ka dambaysa. Qayb yar oo caqligeeda ka mid ah ayaa si adag uga hortimid saamaynta shaydaanka. Xilligaas, Sam ayaa gudaha u soo booday markii uu maqlay qaylada gabadhiisa ee gargaar doonka ah. Wuxuu raacay codka ilaa uu ka helay. Sam wuxuu arkay shaydaankii oo Jackson jirdilaya, wuxuuna soo daayay xoog aan caadi ahayn, isagoo shaydaanka ka jiiday jidhka Jackson. Ugu dambayn wuu badbaadiyey. Si
kastaba ha ahaatee, maadaama Chombi dhintay, ma jirin waddo ay uga baxaan meeshaas. Intii Sam uu dejinayay Jackson oo ooyeysa, xarig ayaa si lama filaan ah korka uga soo dhacay. Saaxiibkii Jackson iyo hooyadeed ayaa u yimid samata bixin. Dadkii ay saameeyeen gabdhaha dharka cas xidhnaa waxay dib ugu noqdeen sidii caadiga ahayd. Ciidaankiina si buuxda ayaa loo baabi'iyey. Chombi wuxuu si aamusnaan ah ugu jiray boorsada dambe ee gaariga, hawshiisiina way dhammaatay. Sheekadani waxay ina xasuusinaysaa in wax kasta oo dhacaan, mar walba aad ku tiirsanaan karto qoyskaaga, sababtoo ah iyaga ayaa ah dadka kugu jecel ugu badan.